صاحبيال lacag dambe ha ku bixin ChatGPT 5.1 modelkan cusub ee hadda soo baxay. China waxay soo saartay Kiwi 2 kaas oo suuqa ka saaraya una dhigma GPT 5.1. ChatGPT 3 bilood ka hor waxay soo saartay modelkooda ugu casrisan uguna caqliga badan ee GPT 5. Users fara badan ayaa complain gareeyay sheegayna inuu modelkan yahay smart laakiin waxyaabo badan ay ka dhiman yihiin kana qaldan yihiin. 3 bilood kadib isbuucan OpenAI waxay soo saartay modelkoodii ugu sii casrisanaa kaas oo ay u bixiyeen 5.1 waxyaabihii badnaa ee qaldanaa ee ay sheegayeen userskuna way ka soo saxeen. isla isbuucan China waxay soo saartay Kiwi 2 oo bilaash ah kaas oo u dhigma GPT 5.1 samaynayana waxyaabo fara badan una dhaqmayana qaabkii in uu yahay isaga laftirkiisu AI agency. haddii aad xiisaynayso tahay qof xiiseeya updateska mar walba ku soo kordha waxyaabo walba oo ku saabsan AI-ga fadlan website-keena isha ku hay hirgeli.com qaybtiisa blogga waxaanu mar walba ku soo qornaa isbedelada iyo newska ku soo kordha mar kasta wax walba oo ku saabsan AI-ga. haddaba haddii aad ahayd qof ku bixiya mar walba modeliska cusub OpenAI ay soo saarto Chabi Kiwi 2 horena AI-ska ay soo saarto waxay uga dhigtaa bilaash waxayna ogaaneen DeepSeek uu yahay bilaash mar walba waxay soo saartaa oo ay ka dhigtaa bilaash AI-ska ay soo saarto